kusoo dhawow cabdifataax media. maanta waxaan ku tusin doonaa filim sheeko run ah oo la sameeyey 2013 kaasoo lagu magac daray Lona Surf. qaswadayaasha ka hor iska ilaali oo is-ilaali si ay u noqdaan neefsel. dadka waa in ay adkaystaan 5 maalmood iyo tababar hawleed adag oo leh hurdo yar 4 saacadood ah. waxaa loo arkaa inuu yahay tababarkii ugu adkaa ee ciidamada Mareykanka oo kaliya 25% ayaa ka soo baxay. kuwaani 25% waxay xaqiiqsan inay wax badan qaban karaan si ka badan sidii ay weligood u maleynayeen. nin dhiig baxaya ayaa diyaarad helicopter ah laga sokeen saldhig ciidamada. si xun ayaa loo dhaawacay. isku dayo lagu doonayo in lagu soo nooleeyo isaga oo ku jira teendhada caafimaadka ayaa mid aan waxtar lahayn. 3 maalmood ka hor iftiinkii wuxuu ku tartamaya hogaamiyaha kooxda MiG agagaarka saldhigooda. markii ugu dambeysay ee tartanka ayaa ku soo baxay kalinta koowaad. markaas waxa uu sheegay in uu ku guuleystay ilbiriqsi. maad ayaa biiray iyagoo weydiinaya cidda guuleysatay. waxa uu na soo jeedinayaa rikoorday qofkii laga adkaa. kooxdu waxay si wadajir ah u go'an in ay dani xirto madaxa kooxda MiG waxaana la ogeysiinayaa inay hawl iyo inay yimaadaan kulankii si warbixin looga hadafka waa inay qabtaan oo ay dilaan Axmed Shah. waa taliye sare oo ka tirsan Taliban oo ka mas'uul ah dilka askarta Marines ee bariga Afghanistan iyo sidoo kale dadka tuulada iyo qaxootiga caawiya ciidamada Mareykanka. asiga waa bartilmaameedkooda koowaad. Axmed waxaa lagu garan karaa in aanu lahayn kabtano waxa uu sharxayaa qarashka iyo inay heli doonaan ciidamo degdeg ah oo heegan ah, laakiin waa inay taxadaraan maadaama isgaarsi ay ku adkaan karto. Meekis 4 nin ayaa mas'uul ka noqon doona hawlka. helikobtarada Chinook iyo Apache waxay ku yimaadeen waqtigii loogu talagalay inay soo qaadaan ciidamada waxaana loo daabulay gobolka iyagoo qarsoomaya habeenkii. waxayna ku khasban yihiin inay socdaan ilaa 4 saacadood si ay u gaaraan tuulada la rabo inuu Axmed joogo. marka ay kooxdu ka socoto buuraha waxayna xiriir booskooda saldhiga saacad kasta. isgaarsiintu waxay si xumaatay markii ay ka soo dhawaadeen tuuladii Axmed. isbaaradooda ugu dambeysay ee koomisyada ayaa gabi ahaanba go'an. hase ahaatee si un bay ugu suurtagalayn in ay gudbaan xogta ay ku sugan yihiin. meel ay ka qodaan ayay helaan oo waxay eegaan tuulada. halka marka ay joogaan waxay ogaadeen Axmed oo ay ku garteen xaqiiqda ah inuusan lahayn dhago. nasiib daro waxaa jira ciidan badan oo cadow marka loo eego xogta la siiyey. MiG waxa uu weydiinayaa markaas haddii uu qaadan karo talada laakiin marba in uu halis geliyo. kooxdii ayaa dib u gartay si ay u hurdo degdeg ah u seexdaan iyaga oo Dani ugu tagay inuu ilaashado. waxyar ka bacdi Dani waxa uu maqlay ari agtooda ah. kooxduna waxa ay kacday ariga waxaana horbooday 3 nin oo xoolo dhaqato ah. kooxdu waxa ay dareemaysaa inaan la dareemin. nasiib daro mid ka mid ah xoolo dhaqatada ayaa dul maray cagta. markaas kooxduna waxa ay si degdeg ah u qaxday oo ay xir. Dani waxa uu isku dayay inuu la xiriiro saldhiga laakiin calaamad xumo darteed wax jawaab ah kama helin. xoolo dhaqatada ayaa ka tirsan kooxda Taliban. MiG waxa uu saldhiga ka wacayaa qad aan sugnayn oo uu weydiistay si uu helo taliyaha laakiin isla markiiba uu ka dhow yahay inuu taleefankii qabto. xiriirka wuu go'ay. run ahaantii waxay haystaan 3 doolar ha iska taagnaadaan oo saacado gudaheed ayaa la helaa xiriirka oo waxa ay cuni doonaan dugaag ama baraf baa lagu dhiman doonaa ama baabi'in doonaa. markaas waxa uu sheegay inay heli doonaan jawaab celin wanaagsan, jawaab celin weyn haddii ay dilaan 3 xoolo dhaqato ah. Maad wili waxa uu qabaa inay u baahan yihiin inay dilaan maadaama hadafkoodu inay tirtiraan Axmed. laakiin MiG waxa uu ku talaabsanayaa go'aankii ugu dambeeyay ee hawlgalka. waa inay sii wadaan xoolo dhaqatada oo ay gaaraan meeshii ugu sareysay ee buurta. Dani waxa uu yeeri doonaa saldhiga si loo soo saaro. kooxda ayaa sii daayay xoolo dhaqatada oo kor u qaaday buurta iyadoo markaas oo wili gadaalka eegayo isaga aan hubin inay go'aan sax ah qaateen iyo sida ugu dhaqsaha badan ee xogta loogu gudbin doono ciidamada Taliban. mid ka mid ah wiilasha ayaa sida ugu dhaqsaha badan uga sii socday u kaceen waxayna ogaadeen inuu yahay shir madaxeed qalaal ah. Dani waxa uu isku dayay inuu la xiriiro saldhiga laakiin ma dhicin. Maad waxa uu ku celcelinayaa in tani ay tahay meel xun in la galo waxayna go'aansadeen inay
u dhaadhiceen inay ka dhaadhiceen xarga geedka oo go'ay sugan qoraxda dhaca kadib markii ay sii wadeen lugta maadaama kooxdu meeg ay ku seegteen 3 daqiiqadood oo isgaarsiineed oo saldhiga ah. taliyaha ayaa go'aansaday inuu waco kan ka sareeya oo uu sheego inay dhibaato jirto geedaha dhexdiisa. kooxdu waxay ilaalinayaan hareeraha maad waxa uu arkayaa dhaqaaqa meeken waxa uu aadayaa si uu u eego wareega isku ga'doomay meel ay ka sugan yihiin waa la isku dayay. waxa uu kooxdu ku wargelinayaa in dhawaan ay helan doonaan ciidamada cadowga oo aad uga badan. markaas waxa uu ogaaday ujeedada saxda waxa uuna riday rasaastii ugu horeysay. ciidamada Taliban ayaa hadda og halka ay ku sugan yihiin. rasaasta ayaa dhacay kooxdii meek waxay imaan in ay dhiman tirada cadowga laakiin markay dhinac weeraro waxaa soo gaaro dhaawacyo halis ah. raadiyohii waxaa lagu burburiyay qoriga dhashiikaha. ciidamada cadowga waxay hoos u dhigeen markaas iyo maad dhimanina waxay raadinayaan wado nabadoon. meek waxa uu sheegay inay nabadoon tahay in ay ka baxaan dhanka midig. dabadeedna waxay si degdeg ah u garteen in uu qaldan yahay. markii dhowr xubnood ay xabadii jilbaha uga dhigaan cadowgu xitaa waxay bilaabeen adeegsiga gantaalada xoglo toosiya kooxdu waxayna ka boodaan buur dheer iyagoo mooda in tababarada xabadu aanan ku filnayn. hadda waxaa soo gaaray dhaawacyo isdaba joog ah oo ka dhacay jirka. ugu dambeyntii qof kasta wuxuu maamulaa inuu dib isu abaabulo ay ilaalinayso iyaga ma ahan waqti dheer sida dani looga toogtay lugta iyo garabka. kooxdu waxay si qoto dheer ah ugu socotaa keenta laakiin dani waxa uu joogaa dhammaad xadigiisii. marka ay dib ugu soo jeeday si uu daboolo xaaladu aad ayay u xun tahay. naxdin darteed dani mar dambe ma xakameyn karo codkiisa oo tanaasulaya booskooda. kooxdu mar kale ayay kasoo boodboodayaan dhagaxa laakiin markaas waxa uu sitaa Dennis kaas oo lagu isaga oo taagaya meeshii ugu sareysay ee dhagaxa si dhib yar dhulka taagan. saddexdu waxay go'aansadeen inay u soo laabtaan Dani waxayna heleen xog daboola ah. maad waxa uu si tartiib ah u doortay tali halka meek uu sheegay markaas inuu aadayo jirka si uu isuguna daayo inuu helo calaamada komos. meek waxa uu shaqo ah oo tilmaamay in ay si kasta ha noqotay dhammaan rasaasta iyo daboolka ka imaanaya asxaabtiisa. meek waxa uu sheegay dhagaxa oo waxa uu la xiriiray saldhiga si uu codsado gargaar degdeg uu ka kaco waxayna ku dhacay xabado Dani sidaas oo kale ayuu ku dhacay calaamada xiriirka. wuxuuna soo diray 2 helikobtar jinoog goobta kooxda ama halka 2 nin nasiib daro waxayna u direen helikobtarada abaja hawl kale mana haystaan taageero jinoog laakiin weli way sii socdaan. xaqiiqda wax walba way sii tartiib ah u dejisaa labada iyo sida meed uu dhaawacmo oo uu aaminsan yahay inuu ka bixiyo. wuxuuna codsaday markaas inuu sheego xaaskiisa sidii uu jecel yahay laakiin isla markiiba markaas waxa uu sheegay inuusan dhiman doonin. waxayna ku garaaceen ganta markii rajo oo dhami ay u muuqato inay luntay. laba jinookis ayaa mid oo si xoog ah ay ku sii hayaan wax yar. isku dayga ah in selis loo diro dama sii waarto mar haddii mid ka mid ah diyaaradu helikobtarka uu ka dhacay qori RPG oo ay ka qaraxday meel dhagaxa halkaas oo ay ku dhinteen dhammaan dadkii diyaaradda iyaga oo aan doonaya in ay markaas iyo maad sida xun u dhaawacmay si ay mar naftooda u difaacaan. waa quus muddo aan dheereen kadib maad sidoo kale waa uu waayay naftiisii. markaas ayaa lagu taalka wuxuuna ku degay gunta hoose ee godka uu awoodo inuu qariyo dagaalyahankii Taliban. helikobtarka abaja ayaa timid mana arag cadow dhul wax yar kadib ayaa kacisa markaas uu baxay oo soo toosa maalinta xigta markay qoraxdu soo trailing-kii wuu dhamaaday jidkiisuna xanuun buu la qaylinayaa. wuxuuna u socdaa balibooday oo cabay biyo si uu haraadka ugu jafo. markaas waxaa ka naxay kooxda dadka ah oo ku taalo tuulo u dhow. gacmaha ayuu gacmeed wuuna isku hanjabay laakiin remiyigii gulaab ayaa u fuudiyey gacan caawimo. kooxda ayaa u kaxaysay deganayeen tuulo halkaas oo maabka lagu tusay
mawfiiqda waxaana mid ka mid ah dadkii degnaa aanu ka faraxsaneen joogitaanka askariga Mareykanka ah maadaama dhammaantood haddii ay gacan siiyaan la dili karo isagoo aan fahmin waxaa la sheegay markaas ayaa mar kale gacan ku qabtay bam gacmeed oo ku yiri haddii aan gurigan tegin guriga ma aadi doontid markaas wili waa uu warwareerayaa sababtoo ah ma garanayo sababta uu Gulaab u caawinayo laakiin ma jirto Gulaab siiyay warqad si uu u geeyo saldhigga Gulaab ayaa nin buuraley ah u diray saldhigga ugu dhow ee ciidamada cirka Mareykanka si uu ugu wargeliyo ciidamada militariga halka markaas uu ku sugan yahay ciidamada Taliban ayaa helay dhiiga markaas oo uu raadray u ogaadaan inuu ku sugan yahay tuulada Gulaab waxa ay isku dayeen waxa ay dareen ah kala hadlo jabhadda Gulaab waxa ay isku dayeen in wax dareen ah kala hadlo jabhadda balse ma ay dhageysan markaas ayaa dibadda la soo saaray oo la eegay geed halkaas oo la rabo in qoorta laga gooyo isla markii ay jabhaddu ku dhow yihiin inay madaxa ka gooyaan markaas Gulaab iyo dadka kale ee tuulada ayaa soo dhaxgalay ee ku hanjabay inay dili doonaan dagaalyahanada haddii ay waxyeelo u geystaan markaas dagaalyahanadii Taliban ayaa dib u guratay dadkii tuulada waxay ku soo celinayaan markaas guriga iyagoo wili ka doodaya waxa ku dhici doona hadda markaas waa ka baxay oo Gulaab iyo wiilkiisa ayaa daryeela maalintii xigta kooxaha kacdoonka wada ayaa isku diyaarinaya inay xog ka galaan tuulada markaas waxa uu kacay oo waxa la siiyay biyo iyo cunto isaga oo wili ku wareersan sababta dadka tuulada ay u caawinayaan darbigii guriga waa la qarxiyay oo waa la weeraray dhanka kale saldhiggii hore waxa uu helay waraaqad diray tuuladii reer miyiga waa laga tiro badan yahay oo waa laga xoog badan yahay fursada uma dagaalamaya jabhadaha nasiib wanaag wiil yar ayaa u dhiibay mindi uuna ku guuleystay wareegan ciidamada Mareykanka ayaa yimid waqti yar si ay u burburiyaan dagaalyahanadii Taliban wareega waa la sugay waxayna heleen markaas oo geeyeen diyaarad helicopter ah laakiin wuu istaagay si uu ugu mahadceliyo Gulaab iyo wiilkiisii naftiisii ayuu ku leeyahay dib u noqoshadii saldhigga markaas waxaa la geeyay tiindadii caafimaad wuxuuna ku sheekeynayaa inuu ku dhintay buurtaas walaalihiisa laakiin qayb ka mid ah weli way nooshahay Sifros Lon wuxuuna ku sheekeynayaa sheekada dhabta ah ee markaas Littoral keligiisa ee ka badbaaday howlgal Wonkis oo ahaa howlgal si xun loo dilay hogaamiyaha Taliban Ahmed Shah ee Afghanistan waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan waxaa ka codsanayaa inaad subscribe noo saarto muuqaalka like saarto aad